Messi ayaa ka fiirsanaya inuu ka fariisto ciyaaraha kadib markii Argentina xalay ay ku guuleysatay koobkii saddexaad ee koobka adduunka. Kulan xiiso badan ee dhexmaray xulalka Argentina iyo France. Fadlan haddaad ku cusub tahay horyaalka ciyaaraha adduunka, like noo saar, subscribe desina share gareysi barnaamijkeena asxaabo badan u gaaro. Lionel Messi ayaa xalay ku guuleystay koobka adduunka kadib markii xulka qaranka Argentina uu guul rigoryaal 4-2 uu ka gaaray xulka qaranka France. Ciyaar aad u xiiso badan ayaa dhexmartay xulalka Argentina iyo xulka France, inkastoo ciyaaryahanka xulka qaranka France Kylian Mbappe qaybtii hore ciyaarta uu ahaa mid aad u dansan, laakiin qaybtii labaad ciyaarta ayaa loo maleynayay inuu hurdo ka soo kacay. Lionel Messi ayaa si aad u dabaaldegay markii lagu wareejiyay koobka adduunka kadib bandhig fiican ay sameeyeen xulkiisa. Kylian Mbappe ayaa si fiican u dabaaldegay kadib markii lagu wareejiyay abaalmarinta gool dhalinta ee tartanka World Cup adduunka. Sanadkan koobka adduunka ee lagu qabtay dalka Qatar, waxyaabo badan ayaa laga diiwaangeliyay. Waxaa ka mid ah xulalka Morocco iyo xulka Croatia oo bandhig fiican ka sameeyay tartanka, iyadoo xulka qaranka Japan dhanka akhlaaqda ay hayeen kuwa aad u fiican. Lionel Messi ayaa kadib markii ciyaartu dhamaatay waxaa la weydiiyay inuu ka fariisan doono ciyaaraha iyo in kale. Ciyaaryahanka xulka qaranka Argentina iyo kooxda Paris Saint-Germain Lionel Messi ayaa sheegay in waqti xaadirkan uusan diyaar u ahayn inuu ka fariisto ciyaaraha, waxaana uu doonayaa in uu sanado kale u sii ciyaaro xulkiisa qaranka ee Argentina. Lionel Messi ayaa sheegay in rajadiisa ay ahayd inuu ku guuleysto koobka adduunka, uuna ku guuleystay xalay. Golayaha xulka qaranka Argentina Emiliano Martinez ayaa dhankiisa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in koobka adduunka uu la qaado Lionel Messi, waxaana uu sheegay in markii ay ku guuleysanayeen Copa America uu ahaa koobkoodii ugu horeeyay ee xulka qaranka Argentina. Laakiin waxa uu sheegay in ciyaartoyda xulka qaranka Argentina ay si fiican u garab istaageen ciyaaryahanka kooxdaasi PSG iyo xulka qaranka Argentina. Lionel Messi ayaa ahaa mid si aad loogu taageerayay inuu ku guuleysto koobka adduunka ee sanadkan. Dad badan oo soo ciyaaray sportiska iyo dadka falanqeeya dhammaantood waxay taageersanayeen in Lionel Messi uu ku guuleysto sanadkan koobka adduunka ee lagu qabtay dalka Qatar. Martigeliyaasha tartankan ee Qatar ayaa sanadkan waxay ahaayeen kuwo si aad ugu diyaar garoobay tartanka World Cup. Dalka Qatar ayaa noqday dalkii abid ugu fiicnaa ee martigeliyo koobka adduunka.